gabadha ayada janal lan waxay u samaysatay dadka jarmalka inay ku maagto sidii aad u xukunto ayaa lagu xukumi doonaa qiyaastii aad qiyaastana waa lagu qiyaasi doonaa sidaas awadeed weliga qiyaas qaldan dadka qiyaasin halkan maanta wax ka duwan waxyaabihii Soomaalidu la ordaysay iyo xitaa wixii anigu aan la ordiyay wax ka duwan baan halkan ku hayaa maanta waxaan fiirinaynaa gabadha la yiraahdo Xabiibo akhlaaqda ay kula dhaqantay dadka jarmalka ah qaasatan dadka ay la degantay oo jarmalka ah akhlaaq caynkee ah ayay kula dhaqantay waad yaabtaan mareynaya markaan akhlaaq ka hadlay waa qasab inaan fiirino maxaa yeelay hal qof ayaana jeclaysiin kara dadka hal qofna uu nagu diri kara dadka sida 100 jeer baan aragnay Xabiibo maxay ahayd qof caynkee ah bay ahayd akhlaaqdeedu sidee ahayd xiriirka ka dhaxeeya ayada iyo dadka jarmalka sidee ahayd waad yaabaysaa markaas aan ku waxa leedahay gabar Soomaaliyeed oo saan ahayd oo xagga ahayd oo kooytoon cunug haysatay akhlaaqdu ninkan ka hadlaya maxay tahay akhlaaqdana waan fiirinaynaa maanta waxaan isla fiirinaynaa 12 ciyaal in la haysto maxay ka aaminsaneed ayada lafkeedu maxay ka aaminsaneed 12 ciyaal qofku inuu haysto ayada maxay ka aaminsaneed adaa yaabi doontid video ugu horeeya waxaan fiirinaynaa dhinaca akhlaaqda intaan gaarin waxay ka aaminsantahay ciyaalka dhinaca akhlaaqdan gaarinaa Weißt du, Luft ist auch von deiner Steuer. Aber wieso? Ich weiß es nicht. Wie du nett bist. Und das alles aus unseren Steuer. Ja, du hast... qof baa wuxuu u soo qoray waxa aad haysid oo dhan iyo shaqada haysid iyo waxa gadaashaada ka muuqdo dhan waa canshuurtii in laga qaaday qof baa u soo qoray qofku wuxuu isticmaalayay black and white wuxuu diidayay in ethnic-giisa la garto marka black and white isticmaalay wajigiisa laakiin qofka anigu waa garanaa garkaan iyo hareedkaan dadka cadaanka ah ma samaystaan hadday samaystaanna black and white ma isticmaalaan isma qariyaan dadka cadaanka qofkan waa qof asalkiisu carab yahay ama waa turki halka milyan oo Suuriyaanka ama ummadaha kala oo ku nool jarmalka qof ka mid ah weey ama waa turkida 5 milyan iyo jajabka lagu tiriyo oo joogto wadanka ma aha qof cadaana sida runta ah ee wajigiisana wuxuu ka dhigay black and white si aan ethnic meesha ka imaaday aan loo soo garan laakiin ayada way dhexgali kartaa akoonkiisa way arki kartaa qofku yahay qofka wuxuu leeyahay waxa ay haysatid oo gadaashada ka muuqda dhamaantood waa canshuurteeni asagoo qofkan wuxuu rabay gabadhan iyo dadka cadaanka inuu iska horkeeno qaasatan Soomaalida iyo dadka cadaanka inuu iska horkeeno maxay ku jawaabtay marka aan aragnay jawaabteeda Recht. In den letzten Tagen ist dieses Kommentar so... Du hast recht. Alles komplett. Wenn du mich auch siehst, das ist... Also Oxygen annehmen, also, weißt du, Luft ist auch von deiner Steuer. Aber wieso? Ich weiß es nicht. Wie du nett bist, bitte, bitte weiterarbeiten, damit wir weiter leben können, okay, weißt du, damit wir weiter, also atmen können, spielen können, in die Stadt gehen können, okay? markii aan hawada qaadanay hawada oxygen marka qaadano waxay tiri oxygen fiiri waxay sameynaysaa ma maqla jirtay criticize dadkii bay criticize garanaysaa waxay tiri hawada aan qaato xitaa waa canshuurtaada ay tiri canshuurtaada weeyay tiri hawada aan qaato criticize keeda meesha marayo adiga aan sii dhageysan Dieses Arbeit und die Arbeit meines Mannes, der Arme, der so morgen ist von 7 Uhr von zu Hause weg bis zum 7 Uhr nachts, manchmal um 8 Uhr kommt, also zurückkommt. Alle dieses zählt niemanden, weil wir von eurer Steuer leben, weißt du? Ja, du hast vollkommen recht. Ja. Fiir criticize kan fiiriday dadka cadaankaas noogu direys fiir waxay tiri adinka 6 subaxnimo aad gurigiina ka tageysaan bay tiri shaqaad aadaysaan maanta dhan baad soo shaqeynaysan afartii galabnimo ama shantii galabnimo aad gurigiina ku soo noqonaysaan adinkoo daalan halka inagu aynu ku raaxaysanayno oo ku badbaadayno canshuurtiinni oo aynu meelaha ku marmarayno bal fiiriday adinka shaqaad ku maqnaydeen bay tiri maanta dhan waa soo daasheen gurigiina adinkoo daalan aad imaadeen halka inagu bay tiri halka inagu aan canshuurtiinni ku soo baashaalayno aan ku soo wareegayno aan guriga ku soo noqonayno arrinka asaga dadka jarmalka haday dhageystaan waxay noqonaysaa in colaad weyn loo qaado dadka aan shaqaysan dad badan isugu jiraan dad xanuunsan baa jiroon shaqaysan waxaa jira dad hooyooyin oo ilmaha haya
oo aan shaqaysan waxaa jira dad caadiyan ba aan haddii doonaan u shaqaysan marka maxaa dhici kara marka hadda dadkii may nagu dirta ma dadkii bay nagu dirtay mise wayna jeclaysiisa qofka dhagaxa ku soo tuuray oo meesha qoraalka ugu soo qoray ma aha qof Jarmal waa qof raba dadka Soomaalida inuu isku dhufto dadka ay wadanka iskale hadda waana isku dhufta fiidiyogan dad badan oo Jarmal ah daawanayo iyadoo leh canshuurteena anagu ku wareegnaa anagu waa gurana canshuurteena noo soo shaqeeya adinku markaad soo daalaysaan inagu ma daalnay canshuurteena ku baashaana waxaas wax la qofku khalad ma taa arrinkaas misama alayla waa khalad weyn waa khalad weyn oo waliba isku diraya bulshada Soomaalida iyo bulshada Jarmalka isku diraya waa khalad ay dadka Jarmalka haday dhageystaan fiidiyogan ay tacajabayaan oo leeyihiin dadka aan shaqaysan oo dhamma saana canshuurtanada ilaa dadka canshuurta macnay ugu fadhidaa canshuurta waxa loogu talagalay qofka da'da waxa loogu talagalay iyo qofka xanuunsan iyo qofka ilma dhalay oo marka ilmaha sida hadda ayadoo kale dabcan ilmaha korinaysa ayada xaq bay u leedahay soo wax garatay ma iyo qof shaqadii laga soo buriyo shaqo la'aan oo shaqo raadinaya laakiin bulshada waxa ku jira dad badan oo waxa jira aan shaqaysan oo cayr qaataa jira oo badan adiga warkii kooban isku soo koob warkan waa war bulshada iska horkeenaya warkan ma ahan say u tiri qalad weeyaan waa war jees ah ay ku jeesaysa dadkii waa war criticize ah anaga criticize dhibaato la gaarsiinaya Soomaaliga ma fahamtay akhlaaqiyan marka waxay ahayd qof aan xushmaynayn dadka shaqeeya aan xushmaynayn qof aan xushmaynayn Soomaalida aan xushmaynayn qof aan xushmaynaynin in dadku isjeclaadaan ama dadku ay xiriir ahaadaan akhlaaq ahaan marka gabadhan marka luqadda Jarmal ku hadlayso totally waa zero wax akhlaaqa ma leh wax naxariisa ma leh wax bulshada faa'iido ah ma leh bulshadii iyo ummadihii isku diraysaa qaybta Soomaalida hadda adinka fiirsataan raashinkeeda qaybtan Jarmalka hawl kale ay ku haysaa haddana fiidiyowga kaleeto wuxuu leeyahay ayadu 12 caruur ah qofku inuu haysto sidee u aragtaa ayada laftirkeeda ayada dhashay 12 sidee u aragtaa bal annaga nala yaabaysan markaan lan 12 caruur guri lagu bahan karo suuragal ma ayada see u aragtaa aan isla fiirino fiidiyowga Das ist unglaublich. Hey Leute, wir müssen mal reden, okay? Lass uns mal über die Schulmaterialien reden oder wie viel die Kinder kosten. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ay tiri aynu isla fiirinay tiri alaabaha iskuulka ee ciyaalka aan isla fiirino meeqay u baahan yihiin bay tiri ilmuhu qalabka iskuulka sida buugaagta iyo qalimaanta iyo bahasha qalimada lagu qoray kan wax lagu tiro iyo midda maaragtay koolada iyo midda meeqay u baahan yihiin bay tiri arrinkan waxay tiri wax la unglaublich ay tiri ereyga isticmaasho waa unglaublich tani ma aha bay tiri wax la saadaalin karo ma aha wax la aamini karo wax la rumaysan karo ma aha tiri 12 ciyaal waxay u baahan yihiin wax caadi ah ma aha ayada waxay u aragtaa inaysan macquul ahayn macquul gal ma ahay tiri macquul gal ma ahay tiri bal aan sii wadno video habe vor einigen Tagen ein Video gepostet, wo ich gesagt habe, unsere Schulmaterial hat ungefähr 600 € gekostet. waxay tiri video ayaan maalin aan post gareeyay tiri alaabaha ilmahayga iskuulka aan ugu soo adeego waxay joogaan bay tiri qiimo ahaan 800 mitir mise 600 may 800 tiri 800 bay joogaan bay tiri baan ku soo iibiyay tiri bal aan sii fiirino Leute, das stimmt nicht. Nach einem tiri laakiin taasi haddaba run ma ahay tiri taasi wax run ama 800 aan ku soo gaday run ma ahna lacagtu inta ka badan tahay taaganta Tag habe ich auch noch andere Sachen eingekauft. Und dann maalin kale waxa jirtay tiri oo isla maalinkaas adeega oo haddana wax kale aan soo gaday oo badan immer noch. Das müssen wir. waxay leedahay weli waxbaa sii dhiman wax leen soo gadaabay tiri maalin kasta wax leen sii dhiman weli wax intaa ku ekaanaya male wax leen soo gadaabay tiri wax leen socda weli wax leen socda Darüber reden. Wieso so viele Sachen, Leute? Aber wieso, Leute, wieso? waa inaan tan ka wada hadalnay tiri arrinkan ilmaha
alaabahooda aan dhammaad kale ahayn oo lacagtii naga dhameeyay waa inaan ka wada hadalnaa bay tiri. Wieso so viel? Wieso? Und ein Erste-Klassler Kind kostet alleine mehr als 200 oder 300 Euro. Was ist das? Das ist so ilmaha xitaa iskoolkooda waxay tiri 200 oo laga qaadaa bay tiri halka cunug baa laga qaadaa bay tiri marka waxay tiri lacagtu waa badanta. unglaublich, Leute. Unglaublich. Also, wenn man so viel wie Habibo hat, muss man mehr als die 1500 Euro rechnen. Ja. Eine Sache nicht vergessen. Und einige Sachen musst du von einer speziellen Marke gekauft haben. Und wieso? Ja, viel Spaß mit vielen Kindern. Lass uns so bis zum Ende bringen. Bis zum Ende, Leute. Ich liebe euch. Hi, Leute. waxay leedahay waxaan macquul ma ahay tiri 11 cunug inaa wax soo iibisid wax macquula ma ahan lagama bixi karo shaqadooda iskuulka arday cunug kasta wuxuu ka qaadaa bay tiri bishii 200 euro tiri yaa bishii laga rabaa iskoolka 200 euro waa lacag badan anigu waxaan ku ogaa 100 iyo xoogaa baan ku ogaa 200 euro yaa waa lacag badan marka waxay tiri materialka ilmaha u baahan yihiinna waa inaad soo gadid maalin kasta waa inaad soo gadid wax la socday tiri maalin kasta war maxaa sameeyaa in saddex inaad haysatid saddex kooytoon cunugna wax macquul ma ayadiina waxay rumaysan tahay inaysan macquul ahayn in ilmo badan la haysto ayadiina rumaysan inaysan macquul ahayn dadkii u sheegay dadkii Jarmalka waxay leedahay suuragal ma ah dadkii Jarmalka awalba way la yaabanaan kooytoon inaysan macquul ahayn ayaga ba ogaaba adigina hadda leedahay suuragal bad adiga afkaagi isku disho Soomaa ada afkaagi waxa la istaaganta war wax macquul ma kooytoon caruur inay haysatid macquul ma ya ayada la soo taagan waxba arrinka kama qaban karna marka waxaan sugaynaa waxay tahay waxa soo socdaan sugaynaa waxa soo socda ayaan sugaynaa gabadhan dadka Soomaaliyeed waxay gaarsiisay jubti ugu weyneed ee gaarsiisay maxaa yeelay idaacadaha telefishinada joornaalada website-yada meel kasta waxa lagu soo qori doonaa gabar Soomaaliyeed kooytoon caruur haysatay oo lahayd anagu waxaan cunaa wixiina meel uma socono kan marka bulshadii ku soo noqonaysaa bulshadii oo dhan ay maaragtay dhiiqa lagu hawgelisaan isleenahay kama xumin inay ilmo badan dhashay macnaha xaqiiqda markii laga hadlo qofka in laga xun yahay ma aha inuu qofka ilmo badan dhalay aniga ma rabo kooytoon ciyaal inaan dhalo ma rabo muhiimadda ma aha inaan ka xunahay gabadha muhiimadda waxay tahay haddii aanan waa inaan isu tilmaannaa meesha qalad ka jiro bulshadu haddaysan garan karin meesha qalad ka jiro dee marka meel isaga soconaynaa macnaha ku wada soconaynaa qaladka maalin kasta gurigaana lagu soo jebinaa may waa inaan wax isu sheegno waa in keena qaldama aan niraano arrinkaasi qalad ay haddii laakiin aan dhaano gabadh waa la gardaraya dee albaabkaan ugu soo wada jebinaa kulligeen marka walba waxa badbaadaan maxaa la caanada tay dabadooda la qabtaa haddii gabadhan ay kooytoonkeeda caruur ay dhibaato ku dhaxdhacaan qoysaska dambe waa inay ku baraarugaan waa inay fakaraan waa inay sida muxuu ninka rasaarihi sidii bilaadanki waa inay sidii bilaadanka u fakaraan dadku aysan u fakarin sidii xayawaanka inay soo fakarin waa sidii rasaarihi Soomaaliya inta ka yaabo wuxuu yiri sidii bilaadanka waa inay u fakarin hadda waa inaan sidii bilaadanka u fakarno hadda ilmo badan dhalaysid halkaan aad joogtid you have to know what you have to do ina ka caajistidna maahan ina dadka isku dirtidna ma sida gabadhan oo tiraadid wixiina ku nool ma seexanayna dad badan waxay arkayeen leh inay qarsatay ahayd waxyaaba Soomaalida inay tustamaahayn war gabadhan Soomaali ma haysato Soomaaliga fahma gabadhan Jarmalka waxay u samaysatay dadka Jarmalka waxay u samaysatay general ay ku criticize garayso ay ku caydo ma Soomaali ma raashinkeeda iyo waxaan ay gidgidinaysa burarkeeda Soomaalidu uma baahna Soomaalidu intay boolis wacdo gabadha bur bay qasaysaa ma leh gabadha ayada general dhan waxay u samaysatay dadka Jarmalka inay ku maagto ayada u samaysatay ma fahamtay ayada general waxay u samaysatay dadka Jarmalka inay ku maagtay u samaysatay wana videoga hadii soo gaaray subscribe iyo saara Facebook waxa ka wada YouTube channel-kayga Facebook page-kaygana follow soo dhaha TikTok galafkadana soo raaca maxaad ka dhawranaysaa inta video lamida kulmi doona sidaas nabadgelyo